السلام عليكم ورحمة الله أصحابتيدا سيتيهين maanta waxaan iihay information taariikhiya oo aad iyo aad muhiim u ah qof walbo Soomaaliya waa inuu ogaadaa طبعا dokumentiyo cusub baan soo helay oo ku saabsan taariikhda Soomaaliya oo طبعا reer galbeed ku qoreen especially isticmaalka Ingiriiska iyo isticmaalka Talyaaniga طبعا Soomaalida ummado badan baa jirta ay guumeysatay ama ay adoonsatay طبعا لك واحد سكر طبعا كسور جيدنا تاريخ لو فانا ما أها لكن information وحشتمل مر إن الله الشيء ويا سيدي دتكو وقادان information كمركز سبرايس كأو حاوية إنه الصومالي ده كلية دد أفريكانا مذو كلية ما يقوميسن مربا وحاد عضي إن الصومالي ده قوميستين ضد عربة نعم وسايني شيء دوكومنتين ده واكن إنه هرجع له for example كان وحا قري لي فين اللي يراهدو iyo documenti kale ku qoran tahay Mogadishu in the 19th century documentiga markaa muxuu sheegayaa oo sheekadan see u bilaamatay طبعا businesska oo xeebta banaadir aad bay u fiicneed oo business weyn buu ahaa oo ballaaran oo wax walba yani laga biic mushtari jiray طبعا sababta lama yaqaan laakiin doon weyn oo businessa oo leedahay saltanada زنزبار أما زنجبار طبعا وعماني ذا با كل حتى حيبتا وقوية مقدشو طبعا تاسن وحي اهيد قرن جي سقاري طبناد بلو قيدي واقس مركز زنجبار وحي وتلينيي نين لورنشري سلطان سعيد بن سلطان بسنيسي آد مهم بقول لها طبعا حيبها بنادر طبعا حيبها بنادر مركا يرانو ومركا براو مقدشو حيبها سالورنشري واهر بنادر طبعا dadkii waa la dagay على طول waxa la geeyay suuqii Muqdisho kulligood oo dhan waxa lagu gaday as inay yihiin adoomo dadkii oo dhan adoomaday wadeen iyo xataa carabtii ku jirtay markabka waagaas طبعا Muqdisho waxa u talinayay saltanada Hiraab baa joogtay nimankii marka la gaday oo adoomo laga dhigtay sanad kadib baa dad oo saaxiibo la saltanada Zanzibar baa waasa soo tirsamay waxay yiraahdeen raggeena nasiya lacagna qaata waxaana ku bedelan kartaan oo kale ay soo dhiibeen niman adooma from Zanzibar inay hore u qaataan oo ku bedeshaan lacagna la siiyo abaar kadib ama sanadiyo kadib doon ka timid Zanzibar oo soo mareysay Mombasa طبعا Mombasa waga saltanad gaar ah ee madax banaan saltanadaasi markay soo duqeeyeen oo soo direen hadhowna waxay yimaadeen Muqdisho waxay iska dhigeen dad business wada laakiin waxay shirqooleen laba nin oo qabiiladaha sare Muqdisho ah bay qaateen oo yiraahdeen business Zanzibar jira irna raaca way raaceen Zanzibarna markay ka tageen way qaateen xabis bay dhigeen way xireen hadhowna waxay yiraahdeen lacag 2,000 oo lacagta Britishka waaga jirta baan nimankan ku soo bixinaynaa nin marka waxa jiray oo admiral oo Ingiriisa oo Zanzibar xaakim ka ahaa waxa la oran jiray magaciisa William Owen ninkaas marka advice uu siiyay sultaanka Zanzibar wuxuu yiri warheed dadkan raggan iska celi anaku dhibaato shido marabno sidii bay sheekada u dhacday lacagtii waa la baxshay nimankii raggaana Muqdisho lagu soo celiyay nimankaasna lama adoonsan bal jeel baa la dhigay sidii taariikhdu u sheegayso taariikhdu waxay sheegaysaa doontaas kaliya ma ahayn doonta ugu horeysay oo carab ah oo la qafaashay Soomaalida ka qabato xeebaheeda balse ay doon ay carab leedahay hadda ka hor way ku dhici jirtay especially haday xeebaha Soomaaliya soo martay dekedaheeda ayadoo Soomaalida tujaartooda businessman-kooda ay ka ahayn dulaal doontaas waa la qafaashi jiray dadkiisana waa la qaadi jiray waa la gidi jiray laakiin ilaa hadda documentiga la hayo waxa weeye doontaas bay dadka la gaday oo la soo qoray oo la hayaa taariikhduna waxay sheegaysaa doomahaas dadka slaveska ama adoomaha wada marmar ayaga xataa markay arkaan Soomaalidu doonta soo qabsanaysa dadka laftirkiisa saaran oo la adoonsanaya inay aad ugu farxi jireen doontu inay Soomaalidu la wareegtay laana mar walba wuxuu arki jireen adoonnimada Soomaalida baa 100% dhaanta adoonnimada Carabta oo Soomaalidu mar walba dadka adoonsan jirtay waxay u dhaqmi jirtay si bani aadamnimo ah ka fiican oo ka sareeya oo ka wanaagsan Carabta si u dhaqmi jirtay halkaana طبعا waxaan ka ogaanaynaa oo kale cadeymo muhiim ah inay tahay oo ku dareena cadeymahan wadano dhan oo ah meeshan inuu qofnana ka talin oo Soomaali ahayn
si kastay maab u sawirtaan si kastay u yiraahdaan muqdisho iyo baraawe markaan xukumaynay qof intuu qof xukumo oo doontiisa lala wareego la qafaasho oo dadkiisa la gado ma dhacayso halkaas marka ku ogaado marmar taariikhda in la iska fooji gareeyo taariikhda runtaana dhabtaana tan inay tahay hawsha la socda